waxaan leeyahay Somaliland hadday xusbi tahay iyo hadday beela tahay nabadgelyo alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaa shalay markaan soo galaynay qayla dhaantu waa badnayd de maantana waxay noo farxada inay Somaliland u furan tahay inay cid walba u furan tahay inay nabadgelyo ka dhacday intan ilmaad rayn la doonay intan u baaxeed alla isla qaatay oo meel walba aanu isla garanay dhamaantayo inaanu amni iyo muwaafaqo beesha dhexdeeda aanu qaadano inamadaasina waxay u qabsoomeen beeshoodii arab inta ka bacdi waxa weeyaan imika maantada aynu taaganahay bishan 20 ay tahay arintii beesha taagneed iyo ciidankii dhalinyaradii jabhadda hay'adda Suudaanku watay hawsheedii waa la dhameystiray xalay dhalay baana laga noqday cid loo raacayo eed hore ma jirta maanta laga bilaabo dhamaantayo mid baanu nahay waxaanaynu ku xalinay tala arab waxa jira dadka dhibka jecelo lahaa war jabhad baa tihiine maxaa wuxuu qabsan weydeen wuxuu dhici weydeen jabhad Suudaan bay ahayd dareenka dadkoodana way ka turjumayeen alxamdulillaah rabbil caalamiin shalay toolana kuma naan tira gelin halka hore ugu sii socon maayo maqaadiirun ka soo qaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidamadeedii ila shaqeynayay muddada ee sida wanaagsan ee tolnimada leh ila shaqeynayay waxa kale oo aan u mahadnaqayaa beelweynta arab oo iyaduna maanta aan cid u maqnayn oo halka wada taagan waxaan ka cadeynayaa annagu dareenka iyagu wuxuu ahaa dareen reereed tabasho reereed reerkii aanu wuxuu doonay ee aanu ugu maqnayn halkaasay maanta ku dhayn waxaanu qaadanay waxa allaale wixii ay qaateen waxaanu ku qanacsanay waxa allaale wixii ay qaateen sababtoo wax allaale wax noo hooseeya annaga ma jiro waxaan leeyahay Somaliland hadday xusbi tahay iyo hadday beela tahay nabadgelyo alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan la doonaynaa madashan oo qurux badan intan u baahayd tolkiin iyo dawladdiin iyo Somaliland ee wada garab taagan inaa ku soo noqotaan oo madashu sidan inoogu quruxsanaato xalay toole halkan markaanu soo galayno tooshash baa la shidanayay jabhaddu qoriyay nagu haysay waanu soo sheeg waan soo soconaayay ilaa shalay toole markaanu soo galaynay qayla dhaantu waa badnayd de maantana waxay noo farxada inay Somaliland u furan tahay inay cid walba u furan tahay inay nabadgelyo ka dhacday intan ilmaad rayn la doonay intan u baaxeed waxa kale oo mahad celinayaa dhammaan madax dhaqameedka beesha halkan jooga mid yar iyo mid weyn suldaan iyo caaqil nabadoon oday cid walba cidii hawshaasi iska xil saartay nin hadal ku taageeray nin adin ku taageeray aad iyo aad ba u maasantiin waxa kale oo mahad celinayaa ganacsatada dhalinyarada ah ee xoogooga iyo maalkooga intaba u huray inay halkan yimaadaan meheradoogi soo xidhaan halkan yimaadaan Cabdiraxmaan Faro iyo Maxamuud Saxardi ugu horeeyaan oo shaqooyinkooda ay soo haleeyeen iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka ay nagu soo wajahan qof waliba inuu diyaar garowgiisa odayga soo dhaweyntiisa madaxweynaha soo dhaweyntiisa madaxda qaranka ee la socota intaba sidii laynagu yaqaanay martisoorkii kalgacaltooyadii hadalkii wanaagsanaa soo dhaweyntii intaba inay u diyaar garowdaan soo dhaweyn baa laynagu yaqaanay gobonimadana waa inay bari tolo muujisantaa shaqadaas ay noo taala shaqada kale aynu qabsanaynaa shaqadana waa inoo dhamaatay de Suldaan Axmedna Suldaan Abshirna haddii si hore loo kaftamo waxa de Suldaan markii hore in gaarabo ahaa haddii deegaanka oo dhow maanta Suldaan u noqdayna isagana waan u hambalyeynaa oo u baarigaynaa waa ninka hal loo ogaado Suldaanka hal loo ogaado wixii inta ka dambeeya war hal loo ogaado Suldaanka oo hadhow toolaha la daba galo markaynu talada leenahay inuu dib iskugu noqono kol hadduu maanta inoo qabsoomay isaguna hayna hogaamiyo oo aynu qabsoono oo boqorkooyina ha noqdo alla isla qaatay oo meel walba aanu isla garanay dhamaantayo inaanu amni iyo muwaafaqo beesha dhexdeeda aanu qaadano inamadaasina waxay u qabsoomeen beeshoodii arab waxa ammaanteeda koobaad leh Suldaan Abshir Suldaan Cabdi Boodle oo runtii si sharaf iyo karaamo
iyo dadnimo la noo soo dhoweeyey sidoo kalena ku ammaanan waynu ognahay somalilan maanta siduu nini 10 qof ku maamulaya aad bay u adag tahay telefoon xaggan laga soo diro mid xaggan laga soo diro hoggaamintiisi waxaan idiin xaqiijinaynaa hoggaamintaasi inay tahay hoggaamin sugan dhammaantayo mid baanu nahay waxaananu ku xallinay tala arab dee jabhadaha adduunka Soomaaliya ka baxay way fara badan yihiin jabhad baxday oo iyadoo aan dhiig faraal la gelin oo dhibaato gelin oo dadna dhicin baabuurka haysan waxba samaynin tolkood ay u soo gurmadeen oo ka aqbalay iyaguna ka aqbalay tolkoodna u soo gurmadeen alxamdulillah waa mahad ilaahay taasina waxbaynu kala wada tabannay haddii aynu nahay intii ay jabhadan suldaanku waday ay baxday wax badan baynu kala taban aan kala tabanin waliba wax wanaaji u bulha horta aan soo saamaxna marka hore suldaankana aanu wada ducaynayo jabhadiisii annaga ma geyno inaanu maanta guryahayagii iyo dalkayagii gacantayada wax ugu geysano suuragal nagama aha tacabkii aanu dhisannay iyo hawshii aanu soo galnay iyo halgankii aanu soo galnay iyo nabadgelyadii aanu salka u dhignay inaanu maanta tabashadayada awgeed waxa weeyaan dhibaato u geysano naga suuragal maaha waxa dhacday oo marag laga yahay in annaga ay naga dhex bilaabantay oo waxa weeyaan raggii waxa weeyaan ilmaadeerka ahaa dhaawacyadoodii maanta ayna dhex yaallaan oo annagu aanu isu geysanoona cidina noo imana aanu isku filaannay oo hawshaasi guul noogu dhammaatay wax ilaahay lagu mahadiyo weeye iyadan cidina noo soo gurman alxamdulilah intaa ka bacdi waxa weeyaan imika maantada aynu taagannahay bishan 25 ay tahay arrintii meesha taagneed iyo ciidankii dhalinyaradii jabhadda hay'adda Suudaanku watay hawsheedii waa la dhammaystiray xalay dhalay baana laga noqday cid loo raacayo eed hore ma jirta maanta laga bilaabo maanta haddaynu qaadanay nabadgeliyo iyo midnimo aynu qaadanay ilaahay horta inagu wado ilaahay inagu wado taa inaynu wadnaynu xoojinaa wanaagsan waxaan halkan uga ducaynayaa suldaan abshir mar labaad beeshii arab hadday kuu ducaysay beeshii ciisana way kuu ducaysay bin axmed oo dhan baa kuu duceeyey ducaan dusha kuu saaray tartankaana waxaan leeyahay idinku soo gaabinayaa lax waliba shilka sigtaa lagu qalaaye bal yaa laynaga badin intaynu iskula dardaarmaynaa war tartan baa lagu jira tartanka ayaan laynaga badinin madaxweynadan bay noo soo socdaa maalin food maaha maalin mucaarid maaha waa maalin dhoolatus reer waliba cududiisa iyo awooddiisu muujinaya reer hawdow ama sayla ka kaalaya ama balcabana ka kaalaya ama kaabadahan ka kaalaya reer hawdow waxaa laydinka rabaa inaad cududiina muujisaan halkaa isdhigtaan ayuun baana ooleysaan waxaan idin leeyahay aan dadaalo marka labaad waxaan u mahad celinayaa suldaan abshir cabdiboorle iyo inamadii la socday oo qaatay taladii arab oo qaatay taladii madaxdooda oo qorigii hubkoodina dhulka dhigay taladoo beeshooday qaateen beeshoodaa u gaamisay aad iyo aadna way mahadsan yihiin waxaan leeyahay xalay saddexdii galabnaan soo galay anagoo 5 nina ilaa maanta 12 halkaasaan fadhinay 5 nin waxaa hogaaminayay xogayaha dawladda hoose Siciid Nuur Caawil Xirsi Cabdilaahi Faray maxamuud saxardi 5 taydaasaan hay guddida arabna Mustanbeed bay ahayd way fadhiyay intaa waxaanu ka shaqaynaynay nabadgelyada waxaan ku guuleysanay inaan hawsha soo gabagabayno waxa laalixii la tabanaya iyo wixii kasta inaan soo gabagabayno cadawga Soomaaliland aad bay ugu farxeen ilaa maanta waxba laga qoriyay inaynu hawsha ku kala kacnay in ay dhibaatadu intaa ka sii badanayso ayaa meel walba lagu qoray waxaan ka xumahay inaanu cadawga Soomaaliland iyo cadawgeenu aanu ogeyn dadkani waxay yihiin inaanu ogeyn inaynu nahay dal tala leh oo tawfiiq leh oo la jecel dalkan kale oo dalkii dadkan iyo dalkan dhistay ah inaynu nahay baanay ogeyn taasaynu hawada u marinaynaa walaalayaal tabashadu mar walba aadamaha intuu nool yahay way jirtaa waanay jiraysaa innagu san noqon mayno dalkii aynu dhisnay ee aynu nabadaynay ee halkan balligubadlo oo aynu joognaa ay xarunta u ahayd ee looga soo halgamay diyaaradii ka kacday Hargeysa ee duqeynaysay inaynaan noqon baa halkan madaxda dhaqanka iyo talaqabeenka beesha arab ay maanta Soomaaliland iyo adduunyadaba u sheegeen cadawga Soomaalilandna ay ugu quus gooyeen Soomaalidu waxay tolka waa inaad tolano u noqotaa way noo tolmo
cid kalena hawsheenni may gelin odayaasheenii iyo afarteennii inana qiimaha badnaa ee uu hogaaminaya siciid nuur cabdiraxmaan iyo maxamuud iyo adeer cawil hawshii ay ilaa xalay iskaga dab qaadayeen ay sulaadiinta kale iyo odayaasha kalena ku wada jireen inaynu halkan ku soo gabagabeynay iyadoon cid kalena inoo garta inoo goon inaynu goosannay arrintaas waa arrin ku farxad leh waa dadka intaynu dheernay tabashadiina waxa weeyaan saaka markii aynu macnaha xaal wareysanay aan hoos ugu gaadhnay inteennu waxay noqotay inuu nabadgelyada aynu qaadano aynu ku shaqeyno horena Soomaaliland taariikhdu kaga jira xagga nabadgelyada qarab haddii ma waayo waxyaabo badan baan eegnay wixii naga maqnaa waxaynu ku daynay inuu ku dhaafnay nabadgelyada Soomaaliland inamadii uu hogaaminayay suldaanku ay naga aqbalay iyo cid kastoo gacan ku lahayd ba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin duruufta dalku maanta ku jiro aad bay u adag tahay cid waliba wayna hunguraysay waynayna soo dhex gashaa bay hunguraysay waynugu mahadnaqaynaa inamadeennu inaanay cid kale albaabka u furin ee dareenkoodii iyo dareenka reerkooda uun ay arrintooda ku koobnayd iminkana waxaynu ballan qaadaynaa oo xukuumadda iyo wasiiraduna ballan qaadi doonaan in halkaa aynu caawa ka bilownay maanta ka bilownay arrinkeennu xalay dhalay ka wada yahay oo kow inoo wada yahay